ninkii oo duulimaadkiisa diiwaan gelinaya ayuu arkay wax la yaab leh. dhammaan duulimaadyadii si caadi ah u shaqaynayay ayaa si lama filaan ah loo baajiyey. wakhtigaas taleefoonada rakaabka oo dhan ayaa isku mar helay fariin sheegaysa xaalad degdeg ah oo baaxad leh. markii uu dareemayay culays, walaashiis oo ciidamada u shaqaynaysay ayaa soo wacday si ay uga digto in fayras ka soo ifbaxay magaalada. wakhtigeeda faafiddu waxay ahayd daqiiqada kooban, kuwa la qaadsiiyeyna waxay luminayaan caqligooda oo isu beddelaya wax la mid ah zombies. waxay uga digtay Mark inuusan cidna aaminin oo uu isla markiiba guriga ku laabto si uu u dhunto. macluumaadkii hore ee la qariyey awgeed dadka badankoodu wax diyaargarow ah ma samayn, waxayna hadda ku xayiran yihiin waddooyinka. haddii fayrasku hadda soo baxo, dhammaantood way ku dhiman lahaayeen halkan. markuu taas ogaaday, Mark ma labalabayn. wuxuu si go'aan ah uga tegay gaarigiisii, wuxuuna gurigiisa la tegay bisadiisa. markii uu yimid, waxaa horay u madoobaatay koox weyn oo ciidan ahna ayaa isugu yimid albaabka deriskiisa. dad xanuunsan ayaa mar hore ka soo muuqday magaalada, laakiin sababo gaar ah awgeed ciidanku ma sheegin runta dadka deegaanka, iyagoo sheegaya inay tahay cudurka rabitaanka. laakiin Mark wuxuu si sax ah u ogaa waxa ay walaashiis ula jeeday. kuwani waxay ahaayeen zombies. maalintii xigtay, walaashiis ayaa mar kale soo wacday. waxay heshay xog gudaha ah